Waan ku salaamay daawade kusoo dhow muuqaalkan maanta aan kaga hadli doono basaaskii weynaa ee reer Raashiya isla markaana qaatay diinta Islaamka. Sanadku markuu waa 1989 sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka midowga Soviyeeti warbaahinta siiyay falal musuqmaasuq iyo wax isdabamarin oo ay ku kaceen mas'uuliyiin mansab weyn ka haya xukuumadda midowga Soviyeeti. Sarkaalkaasi waa Alexander Navalny, taasi oo sababtay in xukunka laga qaado mas'uuliyiintaasi. Kadib burburkii midowga Soviyeeti, Alexander Navalny waxa uu wareegay sirdoonka Raashiyada cusub markii 1991 ay burburay midowga Soviyeeti. Kadib markii uu muddo badan ka shaqaynayay, waxa 1997 loo bedelay kooxda burburinta dambiilayaasha ee isla hay'adda sirdoonka waddanka Raashiya, taasi oo sababtay inuu ogaado in sirdoonka uu ka tirsan yahay fuliyo qaraxyo lala eeganayo dadka reer Raashiya, lagana dhigayo in dagaalyahanada muslimiinta ah reer Chechnya ay ka dambeeyaan si loo xalaashado daadinta dhiigooda, waxayna u horseedaa in weerar lagu qaado dadka reer Chechnya. Haddaba 1999 ayaa laga casiliyay shaqadii uu ka hayay hay'adda sirdoonka Raashiya ee KGB. Hay'adda KGB waa mid ka mid ah sirdoonnada ugu khatarsan caalamka, waxaana lagu amray Alexander Navalny inuunu ka bixi karin gudaha waddanka Ruushka, balse bishii Oktoobar 2000 ayaa uu ka baxsaday isagoo wata qoyskiisii, waxaana uu magangeliyo siyaasadeed weydiistay waddanka Ingiriiska, halkaasi oo uu ku noolaa muddo 18 sano ah. Intii uu ku sugnaa gudaha Ingiriiska waxa uu daaha ka qaaday macluumaad badan oo muhiimad weyn u lahaa sirdoonka Ingiriiska, waxaana ka mid ah qaraxyadii aan hore u soo sheegnay ee lagu eedeyn jiray muslimiinta Chechnya. Muddo yar kadib markii uu kashifay xogahaasi, waxaa gaadhay xilligii loo diri lahaa xaggii loo badnaa, maadaama sirdoonku goor walbaba ay ugaadhsadaan iyaga laftoorkoodu. Waxaa loo soo diray basaasiin ay ka wada tirsanaan jireen hay'adda KGB, laakiin aanay wax aqoon isku lahayn. Kadib markii ay kulmeen Alexander Navalny iyo basaasiintii loo soo diray, ayaa ay shah wada cabeen, kadibna waa ay kala tegeen. Muddo yar markii ay sii kala maqnaayeen, Alexander Navalny ayaa xaalad caafimaad darro xumi soo wajahday. Kadib waxaa loola cararay isbitaalka. Baadhidii ugu horreysay waxaa lagu sheegay in la sumeeyey, suntaasina ay ahayd maadada plutonium, waxaana uu dhakhtarku sheegay in maadadani sunta ahi ay wada saaqdeen jidhkiisa oo dhan, ayna adag tahay in wax laga qabto. Haddaba baadhitaan ay wada sameeyeen hay'adda sirdoonka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa waxay ku ogaadeen in jidhka Alexander lagu dhex beeray maadada plutonium, falkaasina ay ku kaceen labadii nin ee ay shaaha wada cabeen gudaha Ingiriiska ay ku kulmeen. Alexander kadibna iskaga xariray gudaha waddankaas si aan loo qabanin, una laabtay waddankooda isla maalintiiba. Alexander waxa uu xaqiiqsaday in dhibaatadan tahay tii uu ku hooyan lahaa, waxaana uu codsaday in loogu yeedho aabihii oo isna ku noolaa gudaha waddanka Ingiriiska si uu ugu sheego sir weyn oo uu qarin jiray. Sirta uu qarinayay waxay ahayd in Master Alexander uu muddo badan ka hor qaatay diinta Islaamka, noqdayna qof Muslima, waxaana uu aabihii ka codsaday in geeridiisa kadib lagu aaso xabaalaha muslimiinta. Kadib markii aabihii uu sheegay islaamnimadiisa una gudbiyay codsiga ah in lagu aaso xabaalaha muslimiinta, 2 cisho kadib ayaa uu geeriyooday Alexander Navalny, waxaana lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee UK. Ilaahay ha u naxariisto geesigii muslimka ah ee reer Raashiya. Alexander Navalny waxa uu ka mid ahaa dad iyaga farakutiriska ee muslimiinta Raashiya ee kasoo dhex muuqday siyaasadda Raashiya. Barnaamijkeeni sirdoonku halkaa maanta aynuugu joogo.